بسم الله الرحمن الرحيم. جعل يال waxaa farxad u ah kaad suuban inay idin soo gudbiso maadadan ciwaankeedu yahay xuquuqda waalidka. waxaa noo jeedin doona cabdulcasiis xasan yacquub. wallahi wa billahi wa tallahi laysa haqqun lahum alayka sabiil ya mahrum ya miskin bal mahdud tanamu min ajnayn faqad tarakta walidayn dha'ifayn ya miskin wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. aabbaha iyo hooyada ha la mid dhigin dadka kale. marka aad u soo gasho adigoo ka yimid dugsi waxbarasho shaqo iyo wax la mid ah, amaba aad timaado kulan ay ku jiraan amaba golo ay fadhiyaan, ha u salaamin sida dadka kale. aabbaha iyo hooyada ee u salaan si cizeen iyo sharfid leh oo ka dhunka madaxa iyo gacanta موجن أهان فضلك إيا أبالكوض. الوالدان من بذرتهم خلقنا ومن رحيقهم شربنا ومن حجورهم وأحضانهم نشأنا ومن غذائهم وزادهم نبت القوة فينا وترى دم الفتوة في عروقنا فهم أحق الناس بحسن صحبتنا وأولى الناس ببرنا وإحساننا ورحمتنا وشفقتنا. حقوق وعقوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. أما بعد، ولا ليال ولا لين حديث كأنه ما أنت وقل كساب سنة هي حقوق والدك. هذا الكيجاننا وأنه حسوسا لما أنت يعنق إذنك حق وين والدك. من يفله قفة بيسن دون عجلة أو عن نفسه كتهم دونين دنبغا وين حالسة لبوها لا تسمه وعاصمة والدك. ولا ريال والدك وحي إليهم حق آدئين وحان نغسارا حلب اللارا الله بكدر دارمي أو أمري وناجين توله أو وحا تسود دي آية كريمة وحجر اللوين جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ووحن كواجب من آدنها inuu u ahaado baari oo u roonaado waalidkiis. hooyadiis waxay ku qaadaa rafaad oo ku dhashaa rafaad oo uurkusididiisa isaga iyo ka goyntiisa naaska waa 30 bilood. jeer markii uu tabar galo oo 40 jirsado yiraahdo kan wanaagsan rabbiyow iskii awoodda iyo kartida inaan noqdo mid ku shukriya nicmadaada aad igu galladaysatay aniga iyo labadayda waalid, iyo inaan falo camallo wanaagsan oo aad raalli ka tahay oo ii hagaaji ubadkayga. waxaan kuula soo jeestay toobad oo waxaan ahay mid ka mida muslimiinta isu dhiibta rabitaankaaga ee ku hoggaansan. wuxuu kaloo yidhi allah subxaanah
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. waxaan ku waajibinay aadanaha inuu u wanaagsanaado u baari ahaado waalidkiis haddiise ay kugula dadaalaan inay kaa yeelaan inaad u sharig yeesho cibaadada wuxuun sharig ahaan aadan u haysan xujo markaa ha adeecin waa xaggeeda noqodkiinu waxaana idinkaga warrami doonaa wixii aad fali jirteen. xagga axaadiistana mar wax laga weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam camalada kuwooda u wanaagsan wuxuu yidhi salaada oo wakhtigeeda la tukado. misna waxaa la weydiiyey maxaa xiga saa wuxuu yidhi wanaajinta waalidka. dabeete waxaa la weydiiyey maxaa xiga wuxuu yidhi jihaadka jidka alleh. marka eega wanaajinta waalidka iyo u baari ahaantooda baa ka horraysa oo laga siiyey mudnaanta koowaad xigtaa jihaadka jidka alleh. abu burda ibna abi muusa alcashcari allaha ka raali noqdee wuxuu la joogay mar ibni cumar isagoo nin reer yaman ahi dawaafaya kacbada hooyadiisna uu dhabarka ku sido isagoo kacbada dawaafinaya isagoo leh anigu waxaan ahay owrkeedii hayinka ahaa haddii ay owrta diddo oo dirdirido anigu hooyaday lama dirdiriyo tartiib baan u daabihiyaa. dabeete wuxuu yidhi ninkii reer yamanka ahaa ibni cumarow ma kula tahay inaan u abaalguday wuxuu yidhi ibni cumar saxaabigaa saqiiha ah maya hal docosho kalay ku tahay xaqaydii maadan gudin. wax kasta oo aad fasho addoonkii allahy iyo si kasta oo aad u wanaajiso oo ugu asxaan iyo wanaag fasho ma gudi kadib xaqa waalidka. waxaase maanta dhaca ay dadku la yimaadeen ilaa man raxima allah waa arrimo la yaab leh ama kaag iyo argagax. gabar ayaa hooyadeed wax weydiisay gabadhii waxay ugu jawaabtay habar yahay qaylada iga daa anigaa isku buuqsane. hooyadii ayaa gabadhii baryaysa oo sabaalinaysa iyadoo leh hooyo raalli ahow. waxaad arki hooyo halkii ay gabadheeda u adeegi lahayd ay hooyadii adeegayso oo misna ku dhahayso gabadhaydiyay maxaa kuu dhiman oon kuu qabtaa. waxaad arkaysaa awlaad waalidkood amar siinaya oo cod dheer oo dhiiran kula hadlaya. subxaana allah. nin dahabla'ahi baa wuxuu yidhi waxaa mar iigu soo galay dukaankaydii nin oo ay la socoto xaaskiisa gadaashiina ay socoto hooyadii oo xambaarsan wiilkiisii yaraa. 4 qof baa iigu soo galay dukaankiisa waxay xaaskiisii qaadatay dahab kala duwan oo badan. markaasuu ninkeedii weydiiyey dahablihii waa imisa lacagta. wuxuu yidhi dahablihii 20,000 oo riyaal iyo 100. wuxuu yidhi ninkeedii xaggee ka timid 100 riyaal waa tii ay xisaabtu noqotay 20,000. wuxuu yidhi hooyadaabaa qaadatay fargashi 100 riyaalah. wuxuu yidhi aaway fargashigii wuxuu yidhi waa kan. markaasuu wiilkeedii inta soo qaaday fargashigii ku tuuray dahablihii isagoo leh habruhu ma laha dahab. markii ay hooyadii maqashay hadalkaas baa waxaa ka soo qabtay ilmo kulul oo gaarigii iska aaday. xaaskiisii baa tiri hebelow maxaa sidaas u yeeshay mar kale ma iyadaa ilmo kuu qaadaysa. waa sida inay tahay naag shaqaale ah. markaasaa waxaa canaantay dahablihii saa wuxuu wiilkeedii kaga daba tegay gaarigii oo ku yidhi hooyadii qaado fargashiga haddii aad rabto qaado dahabkan haddii aad doonto. waxay tiri hooyadii may wallaahi ma doonayn dahab oo ma doonayn fargashi ee waxaan doonayay inaan u iido sida dadka kale ee waxaad iga qaaday farxaddii. ilaahay dembigaaga ha dhaafee ilaahay dembigaaga ha dhaafo. kanina waa nin kale kula nool xaaskiisa iyo ilmihiisa dal kale ku jira isagu nolol wacan oo wanaagsan. hooyadii iyo aabbihiina ay jiraan dalkii
oo ku nool yihiin sila iyo saxariir ayaan war kala helin